xaaladda magaalada Laascaanood ayaa caawa cakiran boqolaal qof oo dhalinyaro u badan oo caraysan ayaa wadooyinka xiray meelaha qaarkood ciidanku waa ay ka baxeen gaar ahaan bartamaha magaalada waxaa la arkayay dhalinyaro calanka maamulka qaatumo ka suraysa bartamaha magaalada booliska iyo ciidanka kaleba xeriyahooda ayay galeen xabado ayaa mararka qaar la maqlayaa xaalka magaaladana caawa waa uu ka duwan yahay maalmihii la soo dhaafay ilaa hadda wax dhimasho ah ama dhaawaca caawa lama soo sheegin inkastoo afartii maalmood ee la soo dhaafay dhimashadu ay gaartay 4 qof dhaawacuna uu 13 yahay maanta magaalada waxaa ka dhacday in ganacsigii la xiray dadkuna wili ay carag ka muuqato ardayda qaar u fadhiyay imtixaanaadka Soomaaliland ayaa sheegay inay joojinayaan inay fasallada galaan imtixaanadana qaataan waxaan wax baranaynaa ama aan qani qaadanayna maalinka ay la saacado xal noqoto inta aysan la saacado xal ka noqonayso waxaan qani qaadanayna male waxaan baranayna male waayo waxa wax baran karta bulsho nabada wax baran karta dad habeen walba hal doorkooda la dilayo dhalinyaradoodii la dilayo arrimahan oo dhan waxa ay daba joogaan dilkii dhawaan ka dhacay magaalada Laascaanood oo dadku ay aad uga careysan yihiin walow caawa waxa magaalada ka socdo ay tahay xaalad ka duwan sidii ay Laascaanood ahayd hadba waxa soo kordha halkan kala socda